kulanti wacan mar kale ku soo dhawaada sheekada maalmihii tagay. Sheekadan waxaa qoray wariye Maahir Jaamac Aadam. qaybtan waxaa aqrinaya anigoo ah Ciise Maxamuud Ciise. odaygii Cusmaan ahaa oo xilli habeen ah dib noogu soo laabtay ayaan uga taariikhaynay wixii dhacay. wuxuuna la yaabay in markan ay dhibaatadu ka socoto dhexdeena. kadibna wuxuu noo sheegay inuu arrinkan gaarsiinayo odayaasha degmada si durba xal loogu helo. waan ku taageernay inay arrintan soo galaan odayaasha. kadib wuxuu guda galay in arrinkan uu deegaanka faham ka siiyo si dadku ugu baraarugo xalna loogu helo arrinkan haysta. oday Cusmaan waxaan habeenkaas isku dhaafnay intaas iyo dardaaran. waxaa la gaaray subaxii 11aad oo aan ka soo maqannahay magaalada Muqdisho, walina aynan gaarin Kismaayo. markaan waxaa taagan dood adag oo ay rakaabka qaarna ku fikirayaan in aniga Fardowse iyo Ibraahim bal la isu keen reebo oo ay dadka kala sii wataan safarkooda. laakiin taasi ma ahan xalka dooda taagan, waayo waxaa la iska rabaa in la helo ikraan, waana sida keli ah ballantu tahay inaan ku sii wadan karno safarkeenna. isla subaxaas waxaana soo gaaray war ah in ikraan lagu hayo Kabsuuma oo iminkana loo soo wado dhanka Jilib. sidaasna uu ku soo dhawaaday xalkii ahaa in la fasaxo. warkaas dad badan wuu farxad geliyay, laakiin anigu marna ma rumaysan warkaas. waxaana taas igala siman Fardowse uu aragtay sheekadan mid maaweelo ah. wararkaas iyo kuwo la mid ah ayaa waxay nagu dhaliyeen aniga iyo Fardowse inaan aadno xaruntii degmada laga maamulayay. kadibna aan halkaas kula kulanno nin ka mid ah mas'uuliyiinta degmada oo magaciisu uu ahaa Xasan. ninkaas isbarashadeennii wuxuuna siiyey kalsooni aan si qoto dheer uga warbixinno arrinta taagan. kadibna wuxuu noo fahmay si dhow. Xasan waa sarkaal xilligii dowladdii militariga ahayd Soomaaliya soo shaqaynayay. badi ma jecla dabeecadaha qabyaaladaysan ama xamaasadaysan ee u dhigan sida dulmiga ah. durbadiiba wuxuuna amray inaan ku laabanno goobteennii. isaguna wuxuu noo sheegay inuu arrinkan ka soo dhaadhicin doono maamulka degmada, gaadiidkana la fasixi doono. annaga oo yara qanacsan ayaan ku soo laabannay dadkeennii rakaabka ahaa. kadibna waxaan la kulannay maamadii wadatay wiilka Soofiga ahaa ee waalna oo meel ku murugoonaysa. waxay la'dahay wiilkeedii oo ilaa saaka barqadii ma aysan arag. sidaa awgeed waxaa caawinaya dhalinyaro kale oo deegaanka ah oo ku haya, maamo waan soo helaynaa wiilka ee sug. hooyadu waxay leedahay wiilkayga oo waalan baa iga maqan. waxay dadkuna leeyihiin ninkii Soofiga ahaa ee waalna raadiya. bal ka waran haddaan annagu aniga iyo Fardowsa dhahno warwadaadkii Ibraahim iyo Ikraan meheriyey raadiya. Soomaad iyo murugo iswadata noqon mayso. haddaba aniga iyo Fardowse shaki kale oo weyn bayna gelisay arrintan. waxaana dhinaca ka galnay raadinta wadaadkii ka lumay hooyadiis. laakiin waxaa amakaag ahayd in ilaa duhurkii aan la'nahay Maxamed Suufi. aniga iyo Fardowse midba kan kale ayuu war ka sugayaa. wax kasta waa malo, weli ma jirto xaqiiq. laakiin cabsi iyo xaaladaha jira awgood waxaa isu kaaya sawiray in wadaadka lala tegay. laakiin maxaa sababaya in wadaad maskiin ah uu Ibraahim ama reerkiisu ka haystaan? tani maahan suuragal ee armuu wadaadka qudhiisu la yimid. ciyaar la mid ah tii Ikraan ay nooga badisay. wax kasta waa filo, laakiin hadda ayay sheekada dhadhankeedu bilaabanaysaa. waxaan sii maraynaa xilli galab ku sii dhow, welina ma hayno wax rajo ah oo la xidhiidha inaan si nabad ah kaga ambabaxno magaaladaas. ha yeeshee aniga iyo Fardowse waxaana la gudboonaatay inaan booqanno Ibraahim oo aan si dhow wax ugu sheegno. laakiin haddana waxaan ka cabsaday in Fardowse iyo gabadhii hubaysnayd ay goobta mar kale isku helaan. sidaa awgeed baan Fardowse ku qanciyey bal inaan keligay aado Ibraahim. sidaas ayaana keligay ku aaday cisbitaalka. markii aan gaaray goobtii cisbitaalka ahayd, waxaan ugu tegay odayaal fara badan iyo maleeshiyadii qaar ka mid ah oo bannaanka taagan. waxaa la ii diiday inaan gudaha u galo, laakiin goor dambe nin ayaga ka mid ah baa ii saamaxay inaan gudaha u sii gudbo. waxaana dul tegay Ibraahim oo ay odayaashii dul fadhiyaan. maba arkayn ee ileen gabadhii hubaysneed ayaa meel dadab ah oo isla qolka dhexdiisa ah indhaha igu haysa. markaan anna indhaha la helay ayaan dhoolla cadeeyey. markiina waxay u soo dhaqaaqday dhankayga. gacanta ayay ii qabatay
waxayna iila baxday bannaanka. waxay su'aashay maxaad halkan u timid. waxaan ku jawaabay ibraahim waa saaxiibkay aan soo wada safarnay, dee inaan xanuunkiisa iyo waxa iska beddelay aan ogaado waa ii muhiim. jawaabtaydaas gabadha dareenkeeda wax buu ka beddelay oo waxay bilowday inay si deggan iila hadasho. aniguna waxaan aad xoogga u saaray inaan idhaahdo kelmad walba oo ay iigu sii dhowaan karto xilligaas. waxaan xasuustaa xitaa wax la moodo haasaawe ama shukaansi inuuna dhex maray, waayo waxaa ka mid ahaa hadalladayda gabadh karti badan, weliba qurux iyo hannaan ilaahay siiyey baa tahay. iyana hadalladayda noocaas ah aad bay ugu dhoolla caddaysay, waxayna ugu horrayn magaceeda iigu sheegtay maryan. markaasaan idhi aniguna hadda ma maryan gaabo ayaan kugu yeedhaa mise maryan quruxsan. inta ay yara xishootay haddana qososhay bay tidhi maya, maryan keli ah iigu yeer. markaas soo uma eka inaan ku sigtay inaan ibraahim seedigay noqdo ama aan la xidido. waa haddaan dhankaas sheekada u sii wado. maryan waxaa iiga warrantay inay ibraahim ka weyn tahay 2 sano, laakiin iyada ay soo korisay ayayadeed oo deggan degmadan Jilib, qoyskooduna ku nool yahay Muqdisho. ibraahim uma socon Jilib iyo Kismaayo midna, wuxuu ku wajahnaa dalka Kenya. kadibna halkaas ayuu rabay inuu ka sii qorsheeyo safar tahriib ah. haddii uu tahriibi lahaa ibraahim oo uu gacangeli lahaa Magafe, si fudud halkaas noloshiisu ugama baxdeen, waayo qoyskiisu ma lahan xilligaas awood dhaqaale way durba wiilkooda ku furdaamiyaan. waxaad moodaa in safarkiisu ahaa mid dhuumasho ah, way niyadda ku qabteen waalidkii. waxay sheekadu noo socotaba waxay maryan su'aashay macluumaad ku saabsan Ikraan iyo Ibraahim, waxayna hadalka ii raacisay weligay isma dhihin ibraahim baa gabadh sidaan ugu waalanaya. daqiiqadda aan la joogaba wuxuu leeyahay naagteedii ama ikraanteedii. marka walaalow bal qisadaas iiga warran. waa su'aal aanan xilligaas si buuxda uga run sheegi karin. waxaan ku qasbanaa inaan wax sheego, wax uunna hambeeyo, sida inaan u sheego in labadooduba ay isjeclaayeen oo ay ismehersadeen inta aynu safarka ahayn, laakiin marna ma soo qaadin wax ku saabsan wadaadka meheriyey iyo marxaladda isku dhacooda. waayo waxay keeni kartaa in la beegsado suufiga wax meheriyey ee Maxamed Suufi ahaa oo ay hooyadii weli baadi goobayso. maryan waxaan u sheegay Ikraan inay tahay qof xitaa loo dhiman karo alashaan quruxdeeda iyo wanaaggeeda, sidaana ay tahay sababta uu walaalkeed ugu waalanayo. waxay tidhi haddii aad sidaa u ogtahay maxaad walaalkay uga fasaxdeen xaaskiisa. waxaan ku idhi maya, waa beentaas, laakiin waxaa jiri karta sabab kaliftay inay Ikraan baxsato. taasna waxaa ogaan kara oo keli ah ibraahim, waana sababta aan hadda ugu socday isaga haddii uu karayo inuu iiga warramo sababtaas. waxay tidhi anigaba waan su'aalay, laakiin aniga hadalka ibraahim waan fahmi waaye wallaahi. hadalka maryan waxaa iiga baxay arrin ah in ninka ibraahim uusan kolna doonayn inuu si dhab ah uga xog warramo arrinta Ikraan iyo isaga qusaysa. waxay ila ahaatay inuu diidayo inuu soo qaado isku dhacoodii asaga iyo Ikraan. hadduu soo qaadana ay tahay in la ogaado in meherkuba uu sameeyey nin waalan oo ay hooyadii gacanta hayso. sidaa darteed ma rabo in nabarradiisa la ogaado, mana doonayo inuu annaga oo saaxiibadii ahaan fasaxo. intaas waxaan ka dhexelay hadalka maryan, waana arrin aniga ii horseeday inaan durbadiiba curiyo fikir kale oo ka sahlan qorshayaal badan oo aan horay u degay. hadda maryan waan isku soo dhowaanay, waxayna maleeshiyaadku arkayaan aniga iyo maryan oo si raxmad leh u sheekaysanayna. waxaa iga degay culayskii badnaa ee isaarnaa. inaan saaxiibka maryan noqdo waa fursad kale oo saamaxaysa in durba xal la gaaro. xoogaa markii ay la sii sheekaysanaysay maryan ayaa gudaha looga yeeray. kadibna waxay tidhi waan kuu soo laabanayaa ee halkan sii fadhi. waxaan idhi waayahay. intii ay iga maqnayd ayaan isbaray maleeshiyada ninkii igu dhowaa xilligaas oo taagnaa meesha ku beegan ilinka qolka. waxaan idhi saaxiib, waa maxay guuxa iyo odayaasha maanta isdhex yaacaya ee cisbitaalka buuxa? wuxuu ii sheegay inay yihiin odayaashii dhaqanka ee degmada oo ku jira xallinta arrinka taagan. malaha odaygii Cusmaan ahaa ee kolkii hore rakaabkeenna ka tirsanaa ayaa hawsha si xoog leh u kiciyey oo meel wanaagsan marinaya, waxaana saacidaya walaalkii oo xushmad weyn ku leh deegaanka. inta uu ii waday sheekada ninkaas maleeshiyada ah
ayay soo dareereen odayaashii. waa kan oday Cusmaan oo isla goobta igu baray walaalkii oo ay wada socdaan. waxayna ii sheegeen rajo wanaagsan oo ah in durbana la fasaxayo. haddana waxaaba igu soo laabatay Maryan oo markaan ah qof insaan ah oo rabta inay wax nala saxdo. laakiin wax walba waxay isbedeli karaan haddii uu ilmeeyo ama ooyo Ibraahim. sidaa darteed waan ka baaqsaday inaan u galo isaga si uusan dareen kale u qaadin. waxaanse Maryan u soo jeediyey inaan kulansiiyo ayada iyo Fardowsa oo aan ugu sheegay qof wanaagsan oo cuqdi aan lahayn inay tahay. Maryan way aqbashay, waxaana u soo dhaqaaqnay dhinacii Fardowsa oo ajandaheena u dambeeyay ee aniga iyo ayada aan wada degnay u ahaa. hadda laga bilaabo labadeennu waan isqabnaa. calashaan nin iyo xaaskiis ayaan nahay. waa si aan uga badbaadno shirqoollada socda goortaas. laakiin hadda xaaladdu ka duwan. sidaa ayaanu ku wada soconnaa aniga iyo Maryan. sidaa awgeed maxaan kala kulmi doonnaa Fardowsa? maxay i dhaxal siin doontaa isu soo dhowaanshahaana dhex maray aniga iyo Maryan? Fardowsa sidee wax iila fahmi doontaa? ma dhabbaa in nala fasixi doono sida ugu dhow? maxaa Maxamed Suufi loo waayey? xaggee qisaskani ku kulmi doonaan? qaybta 9 la soco.